Xijaabku waa maro astaan u ah dumarka Islaamka ahi. Alla ayaana ku waajibiyay in ay xirato gabadha muslimadda ahi. Haddaba weli maad isweydiisay waa maxay ujeedada xijaabka dumarka u xirtaan iyo ahmiyadda uu leeyahay? Macnaha erayga xijaab waa asturnaan. Xijaabku waxa uu ka mid yahay dharka qaasku u ah dumarka muslimiinta. Inaad xirato xijaabka waxa ay calaamad u tahay inaad tahay qof fulinaya amarkii Allah subxaanahu wa ta'ala. Xirashada xijaabku waa amar Allah quraankiisa ku sheegay. Sababtaas darteed ayayna waajib ugu tahay dumarka muslimiinta inay xijaabtaan. Inay gabadhu xirato xijaabka waa calaamad lagu garanayo inay fahantay amarkii Allah oo ay qaadatay. Xijaabku waa quruxda gabadha muslimka ah. Waxa uu ka mid yahay awaamirtii Allah subxaanahu wa ta'ala. Qofkii fuliya amarkii Allahna aakhiri adduunba wuu liibaanayaa. Midna ogow in gabadhu ay muujiso diinteeda iyo asturnaanteeda waa qayb ka mid ah quruxda dumarka. Sidaas darteed marnaba ha ka cabsan inaad muujiso oo aad xirato xijaabka.